maxaa saaka ka soconaya wadanka Pakistan dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadda ee gobolkaasi xaggee iminka wax marayaan mas'uuliyiintii dowladda Iran ee gaaray magaalada Islamabad ee uu hogaaminaya afhayeenka baarlamaanka wadankaasi Mohammad Baqir Qalibaf ayaa taliyaha sare ee ciidanka dalka Iran General Qasim Munir iyo waliba ra'iisul wasaare Shahbaz Sharif hor dhigay dalabaadka dowladdiisa xilli wada hadallada la filayo saacado uun inay naga xigaan maxaa ku qornaa diiwaanka dowladda Pakistan ay dowladdaasi ku wareejisay Iran barnaamijka aroornimo ayaan ku falanqeynayaa khiyaarta inala socotay dowladda Iran ayaa wada hadalka koor waxa ay gaartay mid ka mid ah guulihii ay raadinaysay taasoo iminka muujinaysa dadaallo ballaaran inay ka jiraan in kulamada wada hadalka ay guulo ballaaran ka iman karaan inkasta oo warqadaha cadaadiska ee diblomaasiyaddu ay aad u kordhayaan maxay tahay qodobka dowladda Iran ay ku guuleysatay oo ku sheegi doonaa dhinaca kale dowladda Mareykanku waxay qaaday tallaabo ku saabsan gobolka bariga dhexe xilli la filayay wada hadallada Trump inuusan daacad ka ahayn oo laga baqayo dagaalka dib in lagu laabto hasaatee dowladda Pakistan ayaa haatan ku dhawaaqaysa in dadaaladii ugu badnaa ee wada hadalka ay ku bixin doonaan xiisadan taagan sidii loo soo gabagabayn lahaa xaaladda wadanka Lebanon maxaa lagu tilmaamayaa wada hadallada diblomaasiyadda ee socdana Lebanon kaalin intee leeg ay ku leedahay waxaan sidoo kale idinla wadaagi doonaa mid ka mid ah shakhsiyadda laga dilay wadanka Pakistan aan ilaahdee Iran oo ka mid ah ragga loogu hadal haynta badnaa dhimashadiisa xilligan baahidiisa ay haysa wadanka Iran Kamal Qazari oo isaga iyo xaaskiisaba duqeyn lagu dilay ayaa idinla wadaagaya shakhsiyadiisii kaalinta uu ku lahaa siyaasadda dibadda iyo waliba fikradihii uu soo bandhigaya hadda loo arkay inay muhiim yihiin maxayse Israel ninkaasi u beegsadeen iyo Mareykanka maadaama uu ahaa nin maanta oo kale meel adag ka saari karay guntimaha dowladda Iran ay xirtay Pakistan waxay ku dhawaaqday wada hadalka ka soconaya magaalada Islamabad ee la filayo saacadaha inagu soo fool leh in ay soo fadhiistaan mas'uuliyiinta kala matalaya dalalka Iran iyo Mareykanku inay yihiin arrin wanaag u ah guud ahaan caalamka si gaar ah dunida islaamka dowladani waxay bixin doontaa ayaa la leeyahay war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Pakistan dadaaladii ugu dambeeyay iyo juhdiga colaadan muddada dheer jirtay lagu soo afmeeri doono ra'iisul wasaare Mohammad Shahbaz Sharif ayaa sheegay in wada hadallada ka soconaya dalkiisa ay yihiin fursad taariikhi ah oo naadir ah oo lagu soo afjari karayo dagaalka isla markaana ay Pakistan dadaal kasta gelin doonto sidii loogu guuleysan lahaa soo abiyada colaadaasi waxa uu sheegay in martigelinta wada hadalkan ay sharaf u tahay Pakistan iyo guud ahaanba dunida islaamka isla markaana tani ay tahay waqti muhiim ah oo go'aamin doona in wada hadalladu ay sii socdaan isla markaana ay noqdaan kuwo togan oo waxtar leh waxa uu intaa ku daray in natiijada kulanku ay noqon doonto mustaqbalka geedi socodka nabadda iyo xasiloonida xabad joojinka islaaxda guud ahaanba gobolka bariga dhexe hadalka ra'iisul wasaaraha Pakistan Mohammad Shahbaz Sharif waxa uu imaanayaa iyadoo xalay gudaha wadankaasi Pakistan ay ku weydeen mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dowladda Iran isla markaana uu hogaaminayo Mohammad Baqir Qalibaf ninka afhayeenka waa baarlamaanka wadanka Iran waxaana dhinacyadu ay haatan sheegayaan in Qalibaf uu la xiriiray General Qasim Munir oo ah taliyaha ciidamada wadanka Pakistan isagoo hor dhigay shuruudaha wadankiisu uu doonayay in miiska wada xaajoodka la geeyo dowladda Iran ayaa durbadiiba gaartay mid ka mid ah guulama waaweyn oo istiraatiiji ah oo ku saabsan arrimaha dagaalka iyo waliba xiisadda sii kululaanaysa ee gobolka bariga dhexe ka taagan iyadoo aan labada dhinac is hor fadhiisan durbaba waxaa lagu guuleystay Mareykanka inuu gacmaha qabtay Israel isla markaana xalay lagu dhawaaqay in xabad joojin laga gaaray dagaalka wadanka Lebanon ka aloosan warar ay baahiyeen warbaahinta Israel ayaa sheegaya in Tel Aviv ay ogolaatay in si kumeel gaar ah loo joojiyo duqeymaha ka dhanka ah caasimadda Lebanon ee Beirut kadib codsi ka yimid Mareykanka taasoo qayb ka ah dadaalada lagu diyaarinayo wada hadal toos ah oo u dhaxeeya Israel iyo Lebanon sida ay warisay majalada Israa'iiliga ah ee The Hartis ilaha diblomaasiyadeed
oo aan la magacaabin ayaa sheegaya in Israel aysan hadda u arkin baa layiri bartilmaameed military oo muhiim ah gudaha magaalada Beirut taasi oo gaantay go'aanka in la hakiyay weerarada kadib markii dowladda Mareykanku ay ka baqday in Tehran mas'uuliyiinteeda ay fadhiga uga istaagaan. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in safiirada Washington u fadhiya dhinacyada Israel iyo Lebanon la filayo inay si ambaqaadaan qorshaha wada hadallada labada dhinac sida laga soo xigtay ila Mareykan kulan toos ah oo u dhaxeeya labadan safiir ayaa lagu qaban doonaa xarunta wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka ee Washington ku taala maalinta Salaasada ee soo socota iyadoo ay ka qayb gali doonaan safiirka Mareykanka u fadhiya Beirut Michael Isa sida ay tabinayaan baqaar kamid ah warbaahinta waaweyn ee gobolka. Mareykanka ayaa kulankan u arkaya mid muhiim ah maadaama wada hadallada wadanka Iran ay ku xiran yihiin. mas'uul Mareykan ayaa sheegaya in kulankaasi uu noqon doono mid taariikhi ah oo lagu bilaabay wada hadallo rasmi ah u dhaxeeya Israel iyo Lebanon isla markaana lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadda ka aloosan gobolkaasi bariga dhexe. Mareykanka ayaa sidoo kale tilmaamay in Washington ay diyaarinayso shir hordhac ah oo telefoon ah oo lagu qaban doono baa layiri sidii loo dedejin lahaa ajandaha wada hadalka. xiisadan ayaa ku soo aadaysa xaalad adkeyd oo ka taagnayd gobolka bariga dhexe maadaama mas'uuliyiinta Iran ay ku baaqeen in laga cabsi qabo dagaalka inay dib ugu laabtaan ciidamada ilaalada kacaanka sida Ahmed Fahdi oo ah taliyaha ugu sarreeya militariga Iran oo ku dhawaaqay dagaalkan in aanay joojin doonin oo ay dib rasaasta u qaadan doonaan haddii dagaalka wadanka Lebanon uu sii socdo. warbixino kale ayaa sheegaya in kastoo Israel ay sheegtay in aysan jirin xabad joojin rasmi ah haddana si weyn u yaraysan duqeymihii iyadoo xayiraad adag lagu soo rogay go'aamada weerarada ka imaanaya heerka siyaasadda sida lagu yiri. dhinaca Lebanon ayaa weli ku adkaysanaya in xabad joojin buuxda ay tahay shuruudda ka hor inta aan wada hadallo la gaarin. xaaladda guud ee gobolka bariga dhexe ayaa weli kacsan iyadoo dadaalo diblomaasiyadeed oo xooggan ay weli soconayaan. dhinaca kale mas'uuliyiinta Mareykanka uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi JD Vance iyo waliba rag mas'uuliyiin oo ay ka mid yihiin Steve Witkoff ergeyga gaarka ee Trump ee bariga dhexe iyo wiilka saddex oo yahay Jared Kushner ayaa la fadhiisan doona xubno kala duwan oo kamid ah taliska militariga baarlamanka bangiga dhexe iyo waliba dhinacyada hoggaanka xukuumadda ee diblomaasiyadda wadankaasi Iran. lama oga sida wada hadalladu ay ku dhamaan doonaan inkasta oo si weyn indhaha loogu hayo magaalada Islamabad. sida la socoteen wadanka Iran waxa laga dilay mas'uuliyiin xooggan 40 maalin ee dagaaladu ay ka soconayeen laga soo bilaabo 28 bishii February iyo 7 bisha Maarso dagaalka lagu dhawaaqay si kumeel gaar ah in loo joojiyay. dadka la dilay waxaa ka mid ah Kamal Ghazali wasiirkii hore ee amuraha dibadda ee wadanka Iran kaas oo lagu tilmaamay inuu yahay nin go'aan adka isla markaana in la waayo ay ka dhignayd mas'uul adag oo ka baxay dowladda Iran. waa hogaamiye aragti fog lahaa oo shahaadadiisa PhD-da ku soo qaatay wadanka Mareykanka. haddaba ninkan maxaa laga yaqaanaa taariikhdiisa? Kamal Ghazali waxa uu ku dhashay magaalada Tehran sanadkii 1944 halkaas uu ku qaatay waxbarashadiisii aasiga ahaa. waxa uu jaamacadda Tehran ka bartay culuumta Carabiga iyo waxbarashada kahor inta uusan u anbabixin Mareykanka halkaas uu ku soo qaatay shahaadadiisa sare ee PhD-da jaamacadda Houston sanadkii 1976 sida ku qoran diiwaankiisa oo xalay uu baahiyay telefishinka Al Jazeera. jagooyin muhiim ah ayuu soo qabtay intii talada wadankaasi uu joogay kadib kacaanka wadanka Iran markii uu qortay sanadkii 1979 waxa uu si degdeg ah ugu biiray hay'adaha dowladda isagoo soo qabtay xilal muhiim ah sida wasiir ku-xigeenka amuraha dibadda madaxa wakaaladda wararka dowladda Iran ee IRNA wakiilka joogtada ah ee Iran u fadhiya qaramada midoobay intii u dhaxaysay 1989 ilaa 1997 waxa uu sidoo kale soo noqday wasiirkii amuraha dibadda ee wadanka Iran laga soo bilaabo 1997 ilaa 2005
waxa sidoo kale xubin ka ahaa golaha sare ee difaaca intii lagu guda jiray dagaalkii u dhaxeeya Ciraaq iyo wadanka Iiraan. door muhiim ah ayuu uga jiray nidaamka wadankiisa, tanina waa mid keentay in la beegsado. kadib markii uu ka baxay wasaaradda amuraha dibadda, waxaa loo magacaabay madaxa golaha istiraatiijiga ah ee xiriirka dibadda ee Iiraan, oo ah gole tala bixin ah oo kaalin ku leh dejinta siyaasadda dibadda ee wadankaasi, taasoo ay ku shaqeyso wasaaradda amuraha dibadda. sidoo kale sanadkii 2022 waxa uu noqday xubin ka tirsan golaha telefishinka, golaha tashkiilinta maskaxda nidaamka, oo ah hay-adda sare oo go'aamada istiraatiijiga ka qaadata khilaafaadka dowladda dhexdeeda ka taagan. aragtiyadiisa siyaasadeed ayaa lagu tilmaamayaa inay ahayd mid dowladdu ay si weyn ugu dirsatay intii uu wadanku joogay. Qaraasi waxa uu ka tirsanaa baa layidhi garabka isbedel doonka ah ee reformistaha wadankaasi, isagoo marar badan ku baaqay in la hagaajiyo xiriirka caalamiga ah, in la yareeyo xiisada gobolka iyo in wadahadal lagu xalliyo arrimaha nuclearka ee dowladda Iiraan. shaqadiisa aqooneed ayaa lagu tilmaamayay mid kale oo muhiimad leh. dhinaca kale waxa uu macallin ka ahaa jaamacadda Tehran tan iyo laga soo bilaabo 1983 isagoo dhigayay maadooyinka la xiriira maamulka iyo cilmi nafsiga waxbarashada, sidoo kalena qoray oo turjumay buugaag badan oo shacabka Iiraan ay si weyn uga faa'iideysteen. weerarkii la qaaday sanadka 2026 ayaa shakhsiyadaasi cajiibka ah dowladda Iiraan ay weysay. bishii April sanadka 2026 warbaahinta wadanka ayaa sheegtay in guriga Qaraasi ee Tehran la duqeeyay weerar cirka ah oo lala xiriirinayo dagaalka u dhaxeeya Iiraan, Mareykanka iyo Israel. weerarkaasi waxa uu sababay geerida xaaskiisa, halka lagu dhaawacay isaga oo loola cararay cisbitaalka si loo badbaadiyo. Kamal Qaraasi waxa uu wali yahay mid ka mid ah maskaxda ugu muhiimsan ee siyaasadda dibadda Iiraan ee la xasuusan yahay, isagoo muddo dheer door firfircoon ku lahaa wadankaasi xilli loo baahnaa taladiisa oo dalka Iiraan hadda uu galayo wadahadallo ay talooyinkiisa muhiim u ahaayeen maadaama Mareykanku ay iswajahayaan. hase ahaatee caawa wax talaa kuma laha wadanka Iiraan, lamana weydiinayo khibradiisa diblomaasiyadeed sababo la xiriira in uu dunida isaga huleelay.